intay taageereen kaaraha la marsiiyey ma arkaysa hariinka kale hoon iyo waraasilaha kale qashinkaa lagu daray waraasilaha kale qashinkaa lagu daray idimoolada laf kasta qashinkaa lagu daray hal lafaa laga soo reebay kaayeyl lahay inta kale finito maantay lafta gareen qorshihiisu wuxuu ahaa maalmaha soo aadan intuusan xamar soo aadin inuu ka dego xudur iyo waajid laakiin safarkii uu ku tagi lahaa xudur iyo waajid uu ka baaqsaday wuxuu u diray seedigiisii misna taliyashub wiilkiisii agaasimaha madaxtooyada u diray waxaa lagu magacaabay wasiirka amniga ayaa meesha tagaaya xasan cabdiqaadir laakiin aamin ma jiro waxaa la daba dhigay taliyashub wiilkiisii marka soo kuma muuqato madaxtooyada villa soomaaliya qaabkeeda marka xasan sheekh maxamuud oo macnihii qof meel u diraayo ama wasiiro maslaxuu ku daraa ama jahaanoo ku daraa wasiiradu markay masar aadayaan ama waddan kale jahaana la daba dhigaya si ay usoo jaajuusto iyadaa ka awood badan sidii oo kale marka nidaamkii jabuuti madaxtooyada jabuuti nidaamkii villa soomaaliya nidaamkii muuse biixi la sheegay baydhabo ma loo soo raray madaxtooy laakiin baydhabo nidaamkaasi nidaam kasii shaqayn kari doona maahan ha laakiin laga bilaabo maantay lafta gareen dhalinyarada digil iyo mirifle iyo inta la degan oo hubka siday maantu si toosa isugu diray wayna ku biyo keeni doonaan I don't know the time dhalinyarada waxaan uga digayaa war magaaladiin xabada ku ridina laakiin one day askari ma arkaysa macnihii dhibac la saaray tuutaa dhig la yiri meesha doontid bariis u doona la yiri isbaara xataa inuu dhiganayso lagama yaabo hadduu gaajoodo adaan ku weydiinaya marka meesha sidaas ay u xumaatay cabdiraxmaan nishow iyo maantay ciidanka ugu badan ee la soo buriyeyna waa hariin digilay miriflo dhan weeye laakiin hariin baa ugu badan majority-ga ciidanka darayska laga dhigay oo macnihii baxa la yiri lambar 1 waa hariin xisaabtaasaa taalla ma arkayse macnihii magaalada baydhabo ama lafta gareen isagaa garanaya nin tuurle suu u seexanaya isagaa og xisaabtaasaa hor taalla marka goosan baan idiin akhrin doonaa wararka goosanka ah aanu dhegaysano kadibna microfonkaan furi doona qofkii raba idaacadda hadal baan siin doonaa dhegaystayaal daawadayaal waay goosanka ugu horeeya mucaaradka waa goosanka jaamacadda SMC mucaaradka ayaa abaabulo xoogan ka wada mid ciidan iyo mid siyaasadeedba ka wada magaalada muqdisho caasimadda dalkeena gaar ahaan siyaasiyiinta hawiye ee mucaaradka ah ayaa waxay cabsi weyn ka qabaan in ay waayaan saameyntooda siyaasadeed maadaama hadda la kala baxay oo loo kala baxay Puntland iyo Jubbaland oo dhinac ah oo daarood ah iyo xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa oo uu matalaya hawiye marka mucaaradka hawiye waxay rabaan in ay xasan sheekh maxamuud uusan kaarka matalaada hawiye kaligiisi xoqanin oo ay iyakuna ma arkaysa waxba aan laga soo qaadin sidaas darteed hadda siyaasiyiinta mucaaradka hawiye waxay wadaan ismuujin in xasan sheekh maxamuud uusan ku matalin hawiyenimada hub urursi bay ku jiraan goosanka labaad maalinta beritoole ah magaalada muqdisho caasimadda dalkeena waxaa imaan doona wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo ra'iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxweyne shariif xasan wafdigaas waxay horudhac u yihiin siyaasiyiin iyo madax hore kuwaas oo ka qaybgalaya shirka ay mucaaradka qabsan doonaan isbuuca soo socda war aynu helnay wuxuu sheegayaa in madaxweyne shariif uu la hadlay madaxweyne farmaajo uuna ka soo qayb galo shirka laakiin weli waa uu ka cagajiidayaa farmaajo inuu ka soo qayb galo shirka mucaaradka farmaajo marka gooni u taagay ma aragta ilaa hadda waatan aan kuu sheegay sheekh shariif wuxuu ku yiri dani axmed madoobow saaxiibayaal idinku daaroodnimo haddaad u socotaan 4.5 aan wax ku qaybsana shirka ka soo qayb gala oo farmaajana ku soo dara ilaan daarood waay farmaajo waxa la tusay marka xisbiga inuu qayb kale ma aragta gooni u taagay faad yaasiin xataa macni uu ka tagay kaligiisa taagan marka ujeedada duu ujeeli kun in saaso solo farmaajo saaso ciyaaraya haddii barnaamijkan uu marana xasan oo shuraaka kuleeyahay hadduu mari waayana isagoo dhaqdhaqan teendadii
nasiibkiisa xafiisyadiisa Kenya ka diyaarsanaya hadda waa fahamtay marka meeshaas oo kugu celinaa qodobka labaad بريتولي مقدشة وحا إيمان دونا وفدي وهجامين رئيس الوزراء حسن علي قيري رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرباركة يمدحوين الشريف حسن وفدي جاس وحا يهرو دعوين سياسيين يوم مدحوري كواس أو كقيب قليا شركة أي معارض كقبصان دونان أسبوع أساس عدا ورأينو هلني وحو شيغيا إن مدحوين الشريف والشيخ شريفي والله اللي مدحوين فرماجة ونا معني ونشيغي إنو كسو قيب قل الشركة لكن ولي وكعج جيديا لما هي كان إنه كسر قيب قلي دونا إن كله معارضة ما يسوي ماذا هذه ما كسر قيب قشد معارض كقيب كنا قلت هي دب فرماجو دب واي قضب كسد حاد مدحوين حسن شيخ محمود رئيس وين أيا سكر يكذب وراق توصو كلول oo laba maalmood ka hor ay uga timaadeen aqalka cad ee Mareykanka waxaana lagu sheegay in loo baahan yahay in talada dhexda la soo dhigo iyo in uu ku dhawaaqo shirweyne Soomaaliyeed oo ay ka soo qayb galayaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta way qodobka afraad goosanka afraad shirkii golaha wasiirada maalinta Beritoole ah ka dhici lahaa caasimadda dalkeena waa uu baaqday kadib buuq ka taagan wasiiradii la soo kordhin lahaa iyo xilal kale oo la magacaabi lahaa oo wali madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku jahwareersan yahay meeshaas waa la isku dhagan yahay farqaa la haystaa qodobkan kale goosanka ah madaxweyne Siciid Dani iyo madaxweyne Axmed Madoobe oo kulamo ka wada magaalada Nairobi ee wadanka Kenya ayakoo la kulmay mucaaradka dhammaan iyo beesha caalamka kadib Beritoole oo khamiis ah ama jimcaha Siciid Dani iyo Axmed Madoobe waxay gali doonaan shir kaligood ah oo ay hal go'aan ku wada gaari doonaan sidii ay u wajihi lahaayeen Xasan Sheekh Maxamuud kadibna waxay isku raaci doonaan dalka Imaaraadka Carabta oo ay halkaasi kulamo macni kula soo kulmi doonaan madaxda Imaaraadka Carabta war lafta gareeno Imaaraad aan ku wadno war boorso waa lacag xalay soo waceen laakiin waa ka soo fakiraa buu yiri lafta gareen hadduu marka Digli Mirifluxu u sheegaya si hoose waa boodaya hanin boodaya waa booda ma dhahaysta adiga no boodno facaagu booday Axmed Madoobe booday Dani Digli Mirifluxu waa booda ma boodaya xamarna waa aadamiya تركيا أنا كسي آدي مركاسي ما بودي تركي توسو آدد ما بودي كينيا آدد ما بودي أديس أبابا آدد ديقلي مريفلو وابودا ما بودي هي بود لكن مركان بودا يحمر هذا مركوري ديقلي مريفلو ما أنت وحي يري شعبك اللي يسو داي موقت lafta gareen yaa tahay wada ayuu rabaa inuu ka tirtiro marka isay u tirtirme Cabdi Fataax mahadaba bokol loo diray Digli Miriflow waa booda ma booda baw bood waa booda hadani aba ku dhahay Axmed Madoobe kaalay soo bood waa booda nin fadhiyo boodayo waay waa booda isagoo fadhiyo ku dhaha waa booda Digli Miriflow waa booda hee lafta gareeno bood ma boodaysidee Digli Miriflow waa booda musa uma jeedaan waa boodi rabaa waa booda haye markaa boodaysid orod Kenya aad maya marka hore xamaraan taga wuxuuna ku leeyahay xamaraan ku booda nimanka jooga waa booda hee lafta gareenow adoo inta fadhiya bood waayahay bismillaahi wakafaa qodobka goosan kale firdhiye iyo Xamse Cabdi Barre Djibouti aan ka dayaynaa Puntland burburinteeda iyo maxaabiistii qodobkaas waa shay qodobka toddobaad goosan kale
taliyaha nabad sugidda mudane Sambaloolshe oo diidan in xilka agaasimaha nisa laga qaado oo ku sugan maalmahan degmada Moqokori ayaa waxa uu wacay madaxweyne Xasan Sheekh ayuu wacday wuxuuna amray in dhowr maalmood gudahooda magaalada Muqdisho ku soo galo waa la amraya xamar soo gala leeyahay saaxib duurkaasi kaama saarayse dagaalka waxa loo galay kursiga in lagu ilaashado sababtoo ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qoray warqad xilka qaadista Sambaloolshe 2 isbuuc ka hor ayaa rabay inuu xil wasiirnimo siiyo kadibna hal maalin ku dhawaaqo xilka qaadista iyo magacaabista wasiirnimada laakiin Sambaloolshe ayaa ku dhuumaalaysanaya imaanshihiisii ka dhuumaalaysanaya xafiiska oo wuxuu dhowr maalmood ka hor tagay Moqokori wuxuuna dhahay waxaan joogaa Moqokori waxaan joogayaa Moqokori 2 bilood kulaha 2 bilood waa inaan joogaa ilaa Juun Xasan Sheekh Maxamuud arintiisa dhan ay uga dhacday inuu dhuuntuu rabaa waaya isagoo uga dan leh in uu kaga dhunto xilka qaadista maadaama uu og yahay asagoo jooga Moqokori oo banaankeeda dagaalka ka socda in Xasan Sheekh uusan ku dhawaaqi karin xilka qaadistii sababtoo ah wuxuu xoqonayaa kaarka ah anoo dagaal ku jira ayaa xilka la iga qaaday qodobka goosan kale ugu dambeyn beesha caalamka oo cadaadiskeeda wada ayaa u sheegtay mucaaradka inay la yimaadaan hal go'aan oo midaysan si ay halkaasi go'aan uga qaadaan kadibna Xasan Sheekh u hordhigaan sidoo kale waxay u sheegeen Siciid Deni Axmed Madoobe in ayakuna hal go'aan la yimaadaan kadibna beesha caalamku waxay ballan qaaday in Xasan Sheekh ay dhulka keeni doonaan saaxiga laakiin marka hore waa in mucaaradka ay midoobaan hal go'aanna qaataan sidoo kale Siciid Deni iyo Axmed Madoobe ayaa iyaguna heshiinaya oo hal go'aan la imaanaya marka toddobaadka soo socda shirka mucaaradka looma kala maqnaan doono waxaa ka soo qaybgali doona dhammaan ra'iisul wasaareyaashii hore iyo siyaasiyiin iyo xildhibaano waxaana la hubin kaliya in farmaajo ka soo qaybgali doona in kale maxaan ku sheegay wariyaha Sheekh Shariif waa xariif dabaysha meeshay u socoto uu garanaya warqadan adduunka ay soo saartuu ogaa wuxuu yiri mucaaradow annagoo midaysan waa inaan marka hore gogol isugu imaanaa markaas kadib Xasan Sheekh Maxamuud aan wajahnaa daarodow Deniyow Axmed Madoobow adinku daarood ahaanba waad u shirtaan Soomaan ha okay 4.5 ayaan wax ku qaadanaynaa daarood adinkoo iswata xamar ibaada shirka aan wada galno horta idinku hal waji ah farmaajana keena Sheekh Shariif xariif waa warqadaanu ka faa'iiday waayo adduunka wuxuu yiri mucaarad ka midoobo ama aysan ahayn wuxuu leeyahay Sheekh Shariif nimayo ma galeynaa ha annagu saamilayda banaankan taagnaanayna mushaahidiinul kiraaman ahaanayna waan idin daawanayna Axmed Madoobow adigii Deni soo dawlad goboleedyo ma hogaamisaan ka dawlad goboleed ahaan Xasan Sheekh Maxamuud teendadii keena xalane markaas kadib annaguna saamilayda idinkoo siman caalamku wax yeerinayo annaga saamilaydana marqaati baan ahaanayna sidii farmaajo aad ku samayseen oo kale laakiin mid ma shaqaynayso daarood baynu nahay macnii daarood ahaan waxbaan u cunaynaa dawlad goboleed ahaan waxbaan u cunaynaa annagoo kala soconnaa imaanayna sheekadaasi sheeko shaqaynaysa ma ahan gogoshaan mucaaradka waa inuu ku midaysnaadaa marka ugu horeysa inta aan la wajihin Xasan Sheekh Maxamuud ama adinka marka dawlad goboleed ahaan ku imaada ama daarood ahaan ku imaada midaas labadaas mid soo gala saas uu yiri marka xisaabta markay meeshaasi joogto Abdicasiis lafta gareen wuu gooniyoobay sababtay tahay macnaheedu waa booda hadda duu dhahana xisbigu ku jira Soomaan odawaaba u taliya waa booda haduu dhahana digli imrifla kalsooni badan kama helaayo waa la weerari marka aakhirka hadda sida aan dareemayo inuu boodo rabaa laakiin qaab u boodana male lafta gareen waa inuu boodo wuu rabaa laakiin
ninkan siyaasad xumaa gashay adeerkiisa dhiiqada geliyay xisbigan see looga baxaa hadde xisbiga ilaan gudoomiye ku-xigeen uu ka yahay xeer baa qabanaya xisbiga la iskama gelaayo mana la isaga bixi karo albeerga la soo galo la soo bax ma ahan marka lafta gareen dhibaatadaas haysata waxaan jecelahay dadka ma arkaysa raba studio inay ka waramaan telefoonka inaan u furo laakiin qofkii raba uu soo wactami karaa waxaan rabaa sidoo kale aqoon-yahan Soomaaliyeed oo qoraaga geeska Afrika ah lagu magacaabo Axmed Arlaadi qormo uu qoray inaan idinku daro Axmed Arlaadi wuxuu leeyahay hal sano kadib Soomaaliya iyo Xasan Sheikh yaa dalka u hari doona ayuu ciwaan ka dhigay hal sano kadib hal sana dhiman Soomaan Xasan u dhiman hadii Ilaahay ina gaarsiiyo Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud macnihi miyaa dalka u hari doona mise uma hari doono waa su'aal waay wuxuu leeyahay ma jiro yani ma jiri doono dal la dhaho Soomaaliya oo mar saddexaad uu Xasan Sheikh madaxweyne ka noqon doono dadka daba socda yaysan waqti isaga luminin Axmed Arlaadi waa qoraa weyn ya geeska Afrika khatar waay qoraaladiis jariiradaha xataa fasira oo ma arkaysa af Ingiriis iyo af Carabi ka dhigta waxaa dhici doona laba midkood ayuu yiri laba mid baa dhici doonta wixii dhici doona la og laakiin sida uu leeyahay sir buu ogyahay malaha kow in Soomaaliya lagu kala tago oo sidii uu horay u sheegay madaxweyne Farmaajo nin waliba tuuladiisi uu aado sidaas way noqon ama lambar 2 wuxuu leeyahay Axmed Arlaadi in Xasan Sheikh uu xilka si nabad ah ku wareejiyo marka ay dhamaato mudaxileedkiisa Xasan yuusan ku fakerin in uu Soomaaliya mar saddexaad madaxweyne ka noqdo qoraaga geeska Afrika Axmed Arlaadi wuxuu ku soo gabagabeynaya qoradiisa uu leeyahay waxaan kula talin lahaa in aan dalka lagu kala tegin oo dawladnimadu naga macni nooga burburin damaca waalan ee hal nin dartii waa in Xasan la iska qabto laga ogolaan wixii uu shalay diidi jiray dalkan dalkana laga badbaadiyo sida in lagu qasbo inuu iscasilo ama xilka laga qaado aqoon-yahan Axmed Arlaadi oo kamid ah aqoon-yahanada qoraayaasha geeska Afrika sidaasi ayuu yiri Xasan mar saddexaad macni yuusan ku riyoonin uu yiri finita la musica ama dalka lagu kala tagi ama baashan uu iska dhigaya ani marka waxaan ogahay Abdicasiis lafta gareen hadduusan doontan ka boodin iscazil baa u taala xalane reer galbeedka dheh reer madowga dheh reer carabta dheh faranjiga dheh xalane warqadaasa u qoran next iscazil waay mandate la'aan ma shaqayn karo state kaasi lafta gareen waxa weey isaga yaqaana ma arkayse macni meesha uu ka buskicin doono studio warbaahinta Southern Media Corporation wuu inoo furay marka qofkii soo wactamaya jaanis waa siinayna haddii qof uusan soo wactamayninna waxa weey waa ismac salaameyn doona daqiiqadaha soo socda walaalayaal marka Puntland marka aan ku celin doona Puntland waa loo soo tashanaya meeshii la igu tashanayay ma arkayse macnihi diinkii wuxuu yiri Ilaahay soo ma joogin marka Puntland hadda xataa walaalahooda dhul bahantay ayaa lagu dhufan rabaa oo xabadda macnihi loogu dhiibi rabaa waxaa la rabaa washamsi in lagu qaado Somaliland ay la heshiiyeen in ma arkayse dhinacaas ay ka soo gasho ma arkayse habar